si caasimada Soomaaliya ay tusaale ugu noqoto caasimadaha adduunka bilicda iyo nadaafadda ayuu maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu ka qayb galay nadaafadda ee ka socday degmada wadajir ee gobolka Banaadir. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ku weliyay nadaafadda ka qaybgalkiisa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuled Qadar, gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha gobolka Banaadir ku-xigeenadiisa iyo dadweyne kale. goobta maanta laga sameeyay nadaafadda ayaa ahayd goob aad u buux dhaafiyay qashin fara badan isla markaana u roonayn caafimaadka qofka bini'aadamka ah. hayeeshee ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiintii la socday waxa ay ku dhiiradeen si loo ilaaliyo caafimaadka shacabka Soomaaliyeed ee bilicda caasimadda iyagoo ku raraya qashinkaasi baldoosi ama cagaf. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa bulshada uga digay inay qashin ku shubaan magaalada dhexdeeda cidii hogaansami weysana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalay malaha qofkii maanta wixii ka dambeeyo qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaalo wixii sharciga uu qabo ayuu mutaysanaya tilaabo sharci lahana ka qaadeenaa sababtoo ah waxa hubaala intuu qashinka ku jiro ayuu cudurkana ku jira qashinka hadduu hortaada yaalo cudurkana meeshaas ku yaala. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka ayaa sheegay inay tahay arrin lagu farxo olaha qaranka ee dib u soo celinta bilicda caasimadda loona baahan yahay in mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda ay ka qayb qaataan. waa barnaamij runtii cadiima waan ugu mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo tiimkiisa runtii inay barnaamijkan ay soo celiyaan iska wax qabso oo markii hore lagu soo dhisay Soomaaliya dib loo soo celiyo. waxaan ku go'aaminaynaa runtii mas'uuliyiinta dalka oo dhan baarlamaanka xukuumadda kulli Soomaaliya oo dhan inay runtii barnaamijka ka qayb qaataan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay in nadaafaddu uu qayb ka yahay dib u soo celinta sharafta ummadda Soomaaliyeed ayna muhiim tahay in laga wada qayb qaato. laakiin maanta inaan u soo jeesanay inaan qashinka iska nadiifino oo ay xildhibaanadii madaxdii qaranka ra'iisul wasaare ku-xigeenkii gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka ay nala joogaan waxa ay ka turjumaysaa in Soomaaliya isku duuban ay u soo jeesatay inay dalkeeda dib u dhisato. waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay arrinkan. haddaanan annagu qashinka iska xaaqin, haddaanan annagu jidadka nadiifin, haddaanan annagu guryaheena rinjiyeysan, haddaanan annagu soo celin bilicdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male. waa inaad ogaataa qof walba oo Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa haddaan nadiifisid waa qayb ka mid ah qarannimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliya. olaha nadaafadda qaranka ee dib u soo celinta bilicda caasimadda ayaa waxa hormuud u ahaa haween Soomaaliyeed oo ku faraxsanay inay nadiifiyaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. ma sha Allah si qurux badan waay waxaan u arkaa inay nadaafadda noo soo noqotay inay nabadgelyo noo soo noqotay inuu wadankeena nadiif iyo caafimaad iyo madaxna dhex taagan uu noqday. faraq weyn u dhaxay faraq weyn ma madax arki jirna socoto madax dadkii dhex galayso oo qashinka wax ka xaaqayso waa inoo sanadka 2017 waana ku farax. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa halyeeye ku tilmaamay haweenka Soomaalida u taagan nadiifinta wadooyinka iyo dib u soo celinta bilicda caasimadda. gabdhaha Soomaaliyeed oo jidadka taagan oo nadiifinaya oo gacmahooda ku nadiifinaya kuwaas halyeeye qaran ah kuwaas sharafta ummadda Soomaaliyeed wada. inteena kale oo aan weli arkin waxaan ka codsanayaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan ku baraarugno ololaha nadaafadda qaranka ee dib u soo celinta bilicda caasimadda ayaa waxa ansixiyay xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya in bil kasta dhamaadkeeda maalinta Khamiista ah la sameeyo ololaha dib u soo celinta bilicda caasimadda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.